adiga iyo qayrkaabaa mushkiladda ka abuuraya xeebtaa waqooyi deegaanka ummadda taalla ama galbeed ciise ha noqdo ama samaroon ha noqdo ama sacad muuse waqooyi yaalla ha noqdee cid is haysataa ma jirto xuduudaha haddii laga hadlayo xuduudaha ama 60kii ha noqoto dawlad bay u taallaa ma aha maalin walba inuu caaqil iyo suldaan meel ka hadlo ka dhadhay yiraahdo waxaanu diyaar u nahay go'aan kasta oo xukuumaddu ka qaato xeebaha oo lagu xadeynayo beela loo xadeyn maayo maamul baa loo xadeynaya maamulkuna dad bulsho waliba halka ay taalun bay xuquuqdeeda caafimaad iyo waxbarasho iyo adeegyada bulsho ay ku yeelanaysaa ma jirto beela loo xadeynayo qabaayil loo kala dhigaya maanta Soomaaliland ma jiro mid labaad waxaan leeyahay maanta qarankani maaha qaran reer loogu hanjabo sacad muuse haad sheegayso wax allaale wax ka maqan oo balaayo ahayn ma jirto wax allaale wax ka maqan oo balaayo ahayn ma jirto waxaanu leenahay oo uga ducaynaa inta balaayada doonaysa in Ilaahay soo hadeeyo inta balaayada wada in Ilaahay noo soo hadeeyo intaan hadaayada lahayna in Ilaahay sharkooga iyaga ku koobo intaasaan baaqa u diraynaa waxaan ka raali gelinaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland ee ay gaadhay warbixintaasi shalay waxaanu leenahay milgihii maaha sharafteeda maaha uma taalo waxa kaloon ku darayaa Suldaan Xasan dadka uu weeraraya ayuu haddana leeyahay waxbaan ka qabanaya salaadiinta iyo madax dhaqameedka isxil saaray ee berbere u gurmaday adigu Xasan waxaad sugaysay malaa in adduun lagu siiyo lagu diray nin dawladda dirtay in cid kala dirtay toona ma jiro iyaga ay sabaabulay dhibta shaqaaqada meesha ka dhacdana iyaga u gurmaday inaad maanta afkaaga ku tiraahdo anigu maanidman adigu horta halkeed haysatay halkaad haysatay baa laga rabaa inaad cadayso waxaan kaga baxayaa shacbiga Soomaaliland looma baahna suldaan meel ka hadla oo ka dharaqleeya oo ka hanjaba oo wuxuu doono ka hadla waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa inay isaga iyo inta la midkaaba tallaabo sharciga waafaqsan ka qaato maanta waxa ku saabsan yahay shirkaygan jaraa'id arrin dhaqan aan inoo ahayn oo baryahan dambe madax dhaqameedka qaarkood ka soo fulaysa waxa ugu dambeysay xasan suldaan tawshirka jaraa'id uu shalayta ku qabtay huleel guuleed waxaan leenahay horta marka ugu horeysa reerka uu magacooda ku hadlaya waa reer ballaaran waa reer maanta reer waliba iyo reer ardaa waliba wuxuu yeeshay salaadiin sacad muuse marka laga hadlayo reerka uu sheegayo wuxuu leeyahay 22 suldaan buu leeyahay suldaan walibana reer buu matalaa haddii subeer awal la yidhaahdo subeer awal salaadiintiisa marka la isu geeyo waa 34 suldaan ma idinla tahay nin kaliya masiirka ummaddaasi dhan magaceeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ku hadli kara oo ku weerari kara qaran dhan waxaan leenahay milgaha kuma jirto kuma matalo qaranka iyo magaca uu sheeganayo midnaba ma matalo tusmadiisa gaarka ah baan xasan matalin waxaanu leenahay xasan suldaan dhaxal kuma iman saldanada kumana iman caleema saar reerkoogu caleema saare ama sacad muuse caleema saare ama sumeera wal caleema saarena kuma iman waxa intaaba lagu qiimeynaya ee lagu qadarinaya taariikhda soo jireenka ah ee awowgii iyo adeeradii ay ku lahaayeen ummadan iyo shacbiga reer Soomaaliland waxay kaga jireen baal dahaba ma yahayn dad balaayada abaabula ma yahayn dad fidmada abuura ma yahayn dad dhuuni raaca waxay ahaayeen dad isku tola qaranka gabigiisa uma yahayn dad ardaa yar iyo tusmo yar sheegta sharaftooda iyo karaamadoodu way ka weyneed ragga isaguna maanta wuxuu marayaa inuu sacad muuse gudihiisa kala qaybiyo in uu sheegto taytalo aanu xaq u lahayn inuu sheegto waxaanu leenahay haddii reeraha laga hadlayo reer waliba suldaan u gaara u leeyahay kuma hadli kartid adiga iyo nin kale toona magaca sacad muuse ma sheegan karo ninka sheeganaya dantiisa ka hadlaya ee wax dhibaya intuu magaca reerkiisa ku hadlaha ka hadlo waxaan halkan ku soo gudbinayaa golaha salaadiinta sacad muuse xeer buu samaystay aan halka ku hayo salaadiinta sacad muuse waa 22 xeerkaasi iyagu xeer u yahay iyaga dhigtay waxa kamida
in aan magaca sacad muuse nin keliya iyo 2 suldaan iyo 3 suldaan iyo 4 suldaan midnaba aan ku hadli karin magaca sacad muuse sacad muuse haddii laga hadlayo talada sacad muuse cidda ka hadlaysa waa marka ay 150 caaqil oo sacad muuse u dhan yahay shir u fadhiistaan marka ay kooramkaasi buuxsamo ee salaadiinta kooramkoogu buuxsamo 14 suldaan markay fadhiyaan unbaa magaca sacad muuse lagaga hadli karaa 14 suldaan isaguna shakhsi buu ka yahay aan waliba reerna idman 14 suldaan wax ka yar oo magaca sacad muuse ku hadli karaa ma jiro nin markuu noqdo nin walba magaciisa gaarka iyo reerka uu u yahay buu ku hadli karaa cidina kuma haysato waxaan leenahay arrimaha laga hadlayo ee xeebta uu carabka ku dhufanaya wax salaadiin sacad muuse u yaala maaha wax sacad muuse oo dhakada iska saaran u yaala maaha fidno ka jirta xeebta waqooyi ma jirto oo sacad muuse ahayn